kulanti wanaagsan dhammaan daawadayaasha ku xidhan Malcab Sports kuna soo dhawaada barnaamijkeeni socdaalka Malcab oo toddobaadkan ku soo qaadan doona kooxda wasaaradda ganacsiga Hargeysa. Kooxda wasaaradda ganacsiga Hargeysa oo kamid ah kooxaha heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa ka dhisan ayaa barnaamijka socdaalka Malcab booqday iyadoo ku guda jirta aalamiitadeedii maalinlaha ahayd kuna qabsatay dooxa Arabsiyo ee galbeedka magaalada Hargeysa. cabdiqaadir warsame gudoomiyaha kooxda wasaaradda ganacsiga Hargeysa ayaa barnaamijka socdaalka Malcab u waramay waxaanu yiri biidnillaahi tacaala ujeedadan uu training u qaadanayna wax kale maaha inay nabada dhalinyarta ee kubadda ciyaaraya ee kooxda wasaaradda ganacsiga ka tirsan inay midho dhalkeeda ujeedadii iyo hadafkii aanu lahayn inaanu ka gaadhno tartankan soo socda ee horyaalka inaanu awoodda istasaarno inaanu waxaan ku gaalno kaalinta koobaad horyaalka inaan ku guuleysano ujeedadeedu waa sida idanka Ilaahay insha Allah taala taasaananu hawsheeda ku jirnaa waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay riyadayada noo rumeeyo. Yaasiin Maxamuud Aabayare macalinka kooxda wasaaradda ganacsiga ayaa dhankiisa barnaamijka socdaalka Malcab uga warbixiyay hawlaha aalamiito ee kooxdu waxaanu yiri waxaan maanta joognaa oo aanu training-keygii joogtada ahayd ku qaadanaynaa dooxa Arabsiyo. Training-kan aanu qaadanaynaa waxa weeyaan imika marka gudagalkiisa la eego bishii afraad buu noqonayaa marka laga hadlo training-ka iyo qaabka loo qaato training-kan ma aha mid annaga nagu cusub doox in la galo ama meel bacaada lagu almiiteeyo iyadoo tartanku soo dhow yahay biri season-ka annagu 4 bilood ka hor baanu bilownay inaanu tayeyno kooxda oo aanu soo bandhigno almiitadeeda marka tanu ma noqonayso wax ama ciyaartooygaygu burbur ka qaadaan ama ay dareemaan hadhow hadii la bilaabo macal wiiga soo socda tartankii marka waxaan waafajinay oo waafaqsan yahay aqoonna aanu leenahay traineeda caadiga ah naanka loo bixiyo taas waa taa waxaan ku faraxsanahay kooxda oo ah koox tayo leh oo aanu tayeynay wadano ciyaartooy qaaliya haday weeraryahan noqoto haday difaac noqoto iyo haday dhex noqoto waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa maamulka kooxda ee la jooga labada gudoomiye iyo physical training-ka macalinka bixiya inaka technical-ka noo qaabilsan dhamaantoodana mahadnaqayaa isku duubni baa naga muuqata waxaan rajaynayaa hadii alla yiraahdo biidnillaahi iyadoo xagga rabbi wax walba ku xidhan yihiin tartanka horyaalka la bilaabayo inaanu qaadno koobka insha Allah taasaan ujeedadeedu tahay oo aanu halkan u joognaa maanta waxaan aad ugu mahadnaqayaa tayo qaran ama malcab.com oo ah qof ku suntan ama ma garanaysaa mar walba tayeynta sportska aad baan ugu mahadnaqayaa yawman ma waa arki doontaan idinkoo aayaha iyo midhaha sameeysan hadii la yiraahdo. Cabdiwahaab Maxamed Xirsi oo kooxda wasaaradda ganacsiga u qaabilsan farsamada iyo Cabdirasaaq Muuse Widhi oo kooxda u qaabilsan jidhiska kooxda ayaa dhankooda u waramay barnaamijka socdaalka Malcab waxaana yiraahdeen waxa loo tartamayo ee loo socda waa koobka insha Allah bidmillaahi kariim kuwii hore labadii horeba waa naseegansan filayo laakiin kaniisaan insha Allah rajaynayna ma seegayo waanu subnaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaanu la iman doonaa wallahi imanayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxay ugu soo dhaweeyay kooxda Yaasiin Maxamed Aabayare
aad baan ugu mahad celinayaa iyo guddoomiyaha cabdilqaadir warsame siday igu soo dhaweeyeen waxaanan halkan ka salaamayaa dhammaan xubnaha kooxda iyo kabtanka iyagoo iyaguna si dhaga nugul oo wada jira oo qurux badan aan u wada shaqayno alxamdulillahi rabbil caalamiin. dhinaca kale kabtanka kooxda waa Cawil Isaaq, Abukar Cusbo, Cabdishakuur iyo Xamse oo dhankooda u warmay barnaamijka socdaalka Malcab ayaa waxa ay yiraahdeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan maanta waxaan ugu soo booqday Malcab Sports oo anagoo ku jirna training-keygii maalinlaha kuna sugan Dooxa Arabsiyo. Maasha Allah maanta waxay ka mid ahayd maalmahayga aanu samayn jirnay training-ka maalin ka mid ah. Waxaan noo sharaf ah inuu maanta noo imaado Malcab Sports oo nagu soo booqday anagoo training-keygii ku jirna. Dawaad arkaysaan diyaargarowgii koobka amba horyaalka kooxaha caasimadda ayaan u diyaargaroobinaa insha Allah. waxaan ku rajo weynahay inaan noqono kuwa kaalinta koobaad ku soo baxa haddii Ilaahay dhaahdo. waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee quruxda badan leh aad nagu soo timaadeen amba nagu soo waqtigiina qaaliga aad nagu soo hurteen Malcab Sports. aad iyo aad igu soo dhaweeyay waxaan ka uga baraarujin iyo tababarkii maanta ku jirnaa wasaaradda ganacsiga oon hididiileyn badan aan koobka insha Allah aan meel fiican in ka gaarno doono. kolley waxaan ka maqlaynay Malcab.com oo dhalinyarta aad badan kaga jira oo la ilaawi doono isagana taariikhda insha Allah. wasaaradda ganacsiga aan wax leeyahay u boqormayno insha Allah. koox walbana insha Allah waxaan doonaa dhibcaha koowaad ka soo baxna liiga inaan anigu dhibcaha hogaamino ilaa intan kooxda ku jirno insha Allah. ilaahayna naga garabto anagoo ka duulayna inaanu awood ahaan muujino gelinana ciyaartooyda awood ahaan inaan u sii alaameetayno maxay tahay liigan bilaabin doona insha Allah. waxaan insha Allah muujin doonaa cududeeda ka gaar ahaanada wasaaradda ganacsiga ahaaneed insha Allah. waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah aanu awoodeeda muujin doono ama de ka fikrad ahaaneed aanu ciyaarteeda ama tusaale ahaan ciyaar wanaagayga insha Allah aan muujin doono. waxaan rajaynaynaa insha Allah Allah idmo aanu noqono kooxaha ugu heerka sareeya ka caasimad ahaaneed insha Allah. koobka waxaan rajaynaynaa inuu dan noqdo koob aan insha Allah ku guuleysano kuna soo muujino cududeeda dhammaan ka wasaaradda ganacsiga ahaan insha Allah. sanadkan waxaan u diyaarsanay aad baan u diyaarsanay. waxaan rajaynaynaa inaanu dadaalka macallinkuna geliyay aanu midhaheeda dhalno. waxaan aaminsanahay inaanu nahay kooxaha ugu adag caasimadda inay waqti xaadirkan isma lihin cid baad idila awooda. macallinkaygu dadaalkuna geliyay waxaan rajaynaynaa sanadkan inaanu noqono horyaalkii ugu horeeyay ee imika laga bilaabo caasimadda muddooyinkii sanadadii ugu dambeeyay inaanu taariikh cusub dhignaan rajaynaynaa insha Allah. oo noqono kooxdii ugu horeysay ee ku guuleysata. waan leenahay awoodeedii iyo dadaalkeedii xoog baan u diyaarsanay jir ahaaneed caqli ahaan si walba. sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano insha Allah tartanka ilaahayna ha nagu guuleeyo insha Allah. intaasna waxa inoogu dhan barnaamijkeeni socdaalka Malcab oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanay kooxda wasaaradda ganacsiga oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee magaalada Hargeysa. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale haddii Allah yiraahdo waa anigu Axmed Taye Qarana, Muxiyadiin Ariido, Xasan Xuuto iyo dhammaan bahdii Malcab oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabad geli.